waxaan salaamayaa guud ahaan madasha iyo dadka isku abaabulay ee hawshan xoogga badan leh soo abaabulay yaa salaamayaa waxa kale oo salaamayaa saaxiibkay Aamto iyo inta uu iga bixiyay waxaan ahay macallin waxaan wakiil ka ahay waxaan ahay waalidka labaad macallimiintiiga waaweynid baa joogto runtii inaan macallin sheegto ma aha laakiin hadda xiisad saburad baan qaadiyaan hor joogsadaa iyo caruur baan hor joogsadaa waxaan ahay waalidka labaad ilmaha marka waxaan ka turjumayaa dhibaatooyinka laga wada dhawaajiyay ee aad maqlayseen maalmahan oo dhan oo qolba soo sheegtay waraf Soomaaliga ciriiri ku jiraaye sidee baynu wax nidhaa mahmaah cusub iyaa jirto oranaysa haddii aad garan weydo meesha aad u socoto ha garan waayin meesha aad ka timid adduunyada maalin walba waxa soo baxa habab cusub oo lagu fududeynayo siday luuqadu ku horumari lahayd siday luuqadu ugu fududaan lahayd ubadka iyo dadka waaweyn sidii loo abuuri lahaa ama loo dhameystiri lahaa xiriirka waalidka iyo caruurta haddii aynu taaweynay oo aynaan haysanin academic ama meel hawsha laga maamulo oo luuqada Soomaaliga maanta dadka waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliga ee af Soomaaliga ku hadla way badan yihiin haddii aynu taaweynay xarun dhexe bal inaynu ogaano war maxaan lahaan jirnay oo sideebo afkeenu ku hana qaaday sideebo ubadka ku soo gaaray waxaan ka hormarsanayaa sheeko yar oo gaaban oo ka sheekaynayo wiil fasalka lixaad dhigta oo magaciisa la yiraahdo Guule wuxuu yiri waa maalin Arbaca ah waa subax 7 iyo barkii hooyada yaa noo soo gashay aniga iyo walaalkay Geedi qolkayga iyadoo hiiraagsan markaasay tiri hooyo waa daahdeen ka kaca waa daahdeen xal saacadii baa yahay weydo waan daahnay ka kaca anna shaqadii baan u cararayaa markaasay tiri hooyo waa riya macaan baa u socotay wiilka hooyo waa diga kala goysay riyadii baa diga kala goysay waxa wada ciyaaraya Inter iyo Chelsea baa wada ciyaarayay Zlatan baa gool dhalinayay marka hooyo waa diga kala goysay waxay ma ku cishan karaa bal inay soo noqoto riyadaydii hooyo waxaad ka sheekaynaysaa maxay tahay anna waan daahay idina waa daahdeen ka kacooyo wuxuu yiri intay qolkii gabdhaha ku jirtay gabdhihii soo kicinaysay baan kacay oo nisay gabdho hadda musqusha kaaga hormaraan waad sii raagi markaasaan wuxuu yiri musqushii galay waxaan isku dayay inaan cadaydo laakiin waa ka gaari waayay wajigaan dhaqday waxaan ku soo noqday quraacdii hooyada iyo quraac noo diyaarisay baan cunay qolkaygii baan soo galay oo waxaan labistay dharkii shalay aan sportiga ku ciyaaray hadday hooyaday ogaan lahayd igama ay yeesheen laakiin intay gabdhaha iyo kuwa iga yaryar ku mashquulsanayd baan labistay dharkii aan shalay kubadda ku ciyaaray shalay galabna markaan soo hoyday ma aanan qabaysanin hooyaday shaqay ku maqnay waan labistay orod baan albaabka kaga baxay qabtii albaabkuga hooyaday ku wareeshay dariishaday furtay hooyaday bilan markaasay tiri hooyo ma feeratay ha hooyo waa feedhay hooyo kareem ma marsatay ha hooyo waan marsaday hatta cadaygi waan ilaaway iska dhaaf feerashay iyo kareem waan orday fasalkii oo 20 daqiiqo la iga horgalay iyaan albaabka soo galay markaasaan si yar oo hoose u iri barayga raali ah waan soo daahay xisaab u sharaxay si aan uga kala go'in buu yiri kursigayga inta farta igu tilmaamay fariiso halkaas meeshii baan fariistay booqii xisaabtaan la soo baxo waxaan isku dayay inaan la qabsado xisaabta socota ha sheegin waa xisaab mas'ala ah oo macallinku sharaxayo daqiiqad yar kadib baan saaxiibkay tamay inaan weydiiyo inaado war baleesha iga aamus buu ilahay kala goynina xisaab baan la socdaa cid laanahay wali wax yar kadib baa waxaan dareemay saaxiibkayo siyar iga siisaqaya waar saaxiib baabada haydeene waa sida xisaabta mid iga soo horjeeday oo aad u akhlaaq xun baa yiri waxba uraya ilaa show waan soo dhididay oo waan soo rafaaday darkii shalayna waan xidhanahay aan bixiyo xalayna isku jactaday waxay ugu dheeraatay waqtigii la gali lahaa nasashadii markay soo dhawaatay baan kacay kalaaskan ku dhex warwareegay qalin baan damcay inaan qoro dhowr jeer macallinka garbaha intuu soo qabtay isoo fariisiyo yiri waa la shaqeynayaa fariiso wuxuu damcay inuu masaladii igala shaqeeyo waxaan ku iri waan fahmay anaa waxba fahmay
وحيلي حيسدا إنه وحكتا واحد ليدهين عيار مركا أوكسون هذا هكذا جينا دركي أتكون بدلين لهيدين عيارته هي كبيه وحلوان سوء إلهي أو مسيته نينك عيارنا وأوجه وانن آدي أذو دبضنا أنتوا يبقوا قايلين لها وحنا نسكور ذي الجرهم وحنا نتجه معلن كيارك سنون كودي وأنا حنوصلنا يا مان تما قالك راح يصداس مركز الأرض في عم بعض حي صور هذا الله بض يدو أو مناسب بعض هي لما أنت وتسكب حكتها وحن مودي يا إنا فوقيه يقول جوات أنت هاللحظة سيسو على ماني أو يا بها وكتش الله كبد مركز تجي سوق قاعد تري وحكي صدق بهتو وين أو يا بها حقوك بحي سنة عن أفر سنة سمعنا أنا نقول أباي سبب أي أباي هو يدي كل كلام قيين هو يدي واحد نوش يكتاو كليا إنه لندن إنجليز كدقينه أنا أقول يسوع بانو كنا وحيل أنا هي فيا أباي وان صوص علي الباب كي مركان يمد بنمودي أنا فريه ولا فرب موت الباب كي بان صح الله أقول قفتي ونورتي سكوتوري أنا قلت لنا الباب كي يجي سكور فديا بان شنقر مقلي الباب كي بان فري يا الباب كي يقفري وأباي وأنا نسرق أفرس الموت ساعدها يراكم فرحتها هي قلت إلمها أو كلنتي دلوع الإيريا ده محمد سوقاتي وذكرني شكله نقول أنا يجي شيكي ومعلم كيسي أفكه هويا ويجي شيكي نبتة هاي ستا هوايك هاي ستا عندي بقول نقطة حاجة سبعة نقطة لكن تبى نقول نقطة ما هذا إذا هاي ورهدان جرام وين ماشي عنو صعنو إيه هرمك أدون كوصلوا أيين جرام وين محل حتى أفكو صدق كوصوا هنا قاضي إيه السيدة أن كوجول سنة أفكين وهرمك أكو جرام وين ولا كرام إنسان بدن بايسوجيو وحي رمان تابني وحنقولت ليا marka aan waalidiinta la kulmo waxaan kula taliyaa had inta aad taqaano ee af Soomaaliga ah ee gurigaaga ku taqaano ilmahaaga bar waxaad ogtihiin qof walbana ka warqaba in hooyadu marka ay xambaarsan tahay mid ee ay leedahay isaga la hadlaysaa ayaa dilay oo dagaalay ayaa dakharada u geystay ninkii dilay deeyni maayo dagaal baa naga dhaxeeya dab iyo qol baan qaaday ay isagu ugu heesayso waxa hoos socda hooyada kuwa isaga ka yar waaweyn oo ay cilmi u tahay oo ka cibaaro qaadanaya oo wax fahmaya waad ogtihiin heesihii noocaas ah hooyadu way ugu ducaysay oo way ku amaantay oo way ku tirtirsiye gelisay oo wax kasto ilmaha loogu sheego ayay ugu sheegto wanaag ah way badan yihiin inta hadda generationada noolena intooda badani way garanayaan bal ilmihiina inta aad la fariisatiin qolka fadhiga maanta ardayga ma joognay qolka fadhiga inta aad la fariisataan ugu sheekeeya ugu heesa waa haweenan saadka kaliya ay haystaan waxa ay dheer nin waliba gobol bukay ciyaaro kala duwan baan lahayn waxaan class baan soo fariistay oo ii fadhiyo ilmo ka yimid NFD iyo mid ka yimid Kismaayo iyo mid Muqdisho ka yimid iyo mid reer Hargeysa iyo mid Jigjiga ka yimid iyo mid Djibouti ka yimid intaba waa inaan qanciyaa oo mid bisada u yaqaano yaanyuur midna u yaqaano mukulaal midna u yaqaano basho midna u yaqaano dinad iyo in kala badan أنا دمعسن كلاس كينا قنعيو يعني المهي ويريد هنا أنت فريسة ما هذا لغة صوفي ديو عيار ودي كنا لقى عياران إذا بريا مركزان تهيدي لا يمدي أنا قلنا غير كلبي رامي جيجا كوبش بورمي قبيلين وحنا كوبرتي مركزان اللي كوبين لابين لبا كتر كوتار بربراي برتقب سرقاي طبعا لي ولا حاجة وإلى يارين ولا جماعة markaasaan islibaaxiyo waxaan ku yidhi adkaysa la darisaha kumbulow la caddo xabageed ka baxday bila jira koosaar kaba lacag oday bislow barbaarta ku masaarta u dheere dhaxad ku jar oo ku jiqsi biitoy laabo
إن يربا إلى فهمتي يوم ما راح يروح أنت قال واحد ترى أنا أقول ما أنا كنا وحنا دخلنا مركز ثاني لذو إني كنا حافظين محل عيارة كون حلل بالله شو بلا جنة أو برو برتداف تن مهانة هذا كلا أي كنت من أي كنت كلابو يترق لكون الجمع كاسنا واحد خير الله كزيادة علم بدن بعض البرطي لكن يقولي والدي تاني وعلينا أنا واحد شيء اسمه ما نفهم وايد مركزان حاجة أوسي دقيقة واحد لكل ما كي جوهر إيه بنادم كي من مركز سوري كون عدي بري جيلا جما بري أي فمدي فربح هذا خير الله في يوم بعض البرطي كين علم جباك قاتل وايو بقول جربوا يشيء قارئ يهترى العلم علم جمال يجب علمنا برا سببته أنت صار أرتبا كلاس يفرقيا قلادي غير كسمايا كي يكسف كيس ألف جوبا واحد هذين ماي أنا أقول مكسينه حساب تيجي ما كاساني بل شيء يدون كنا مركزو يركو كون لمنا تبارك ستموني بارك سيددا ولا سجالا ولا يكيا وعلا بحي intaas oo gobol oo kala duwan waliba in badan oo na sheegin baa ilaa wixii mar kaliya ma wada garanayo intii ku hadlaysay soo halka kuma wada jirto war waalid kastooba ilmahaaga hadaad adigu inspiration hadaad adigu dhiiri gelin weydo hadaad taada u sheegi weydo tan Mareykanka iyo tan Ingiriis iyo tay Suurishku kula imanaya kaasoo ku hadlaya kuwaas ay loo buuxa oo aan leenahay oo afkeena ku kaydsan waan hadaltaynaya soo hadalku ugu furmo odayaasha iyo dhinaca afka loogu soo jeesto maadaama aan fiilka ku dhex jiro yaan hadaltaynaya hadhowna waan uga bixi doonaa haddii la ii ogolaado waxaan raacin doonaa sheekooyin aan maqlayay mar dhaweyd laga sanqalinayay oo deegaanka iyo dhulka ku san waxaan jecelahay anigu waxa weeyaan macallin kaliya kuma koobnay waxaan haynan qoraawo qoro kutubta caruurta wax ka barato iswudan baa waxaan soo galay iyadoo laba buug yaaleen nin jaamac iswudan la yiraahdo oo hal buug qoray iyo nin la yiraahdo Maxamed Sheekh Xasan oo buug tirada lagu barto baataajada qoray maantana waxa inoo qoran buugaagta badankooda banaanka shisheeye yaalaan from zero ilaa secondary يعني أنا أقول إسكون هذين الوايا معلمين بعيلا سحدا معلمين بعيلا إلى شقيسة بوقت وحبر الشدة يعني لما يسترني مركزان بين عدقك ولا حني وحن مرة ويد داوني دقيسني عجلتك هذا ليس ده تجاهل ترالا أبيه يومان تأريجني وحن لسوج جوجل بوره قرية يبانكي قليا هذا حاسو دبلو هبي سمارتي المهي بالقولك فردق اللوجو دقيستو أو عندك واحد وقادان hawlahaas baan idin soo gudbinay waxaan raacin doonaa hadii la iyo ogolaado maansada uu saaxiibkay sheegay waxaan tiriyay maanso hore oo ugu mahadinayo ninka la yiraahdo Suldaan saaxiibkay kuna jirta bogga oo la yiraahdo dalbarasho waxaan jeclaystay mar oo hadraaw noogu yimid Sweden baa markuu magaalo weyn tagaba wuxuu qabtaa wax la yiraahdo maanso wadaag markaas uu yiraahdo halkaas aan fadhiyay dhalinyaradu war ha hadlaan markaas aan libaax iska dhigayo maanso la yiraahdo dalbarasho iyaan tiriyay oo habeenkaas aan kaga qayb galay maanta waxaan doonayaa mid kale oo aan doonayo shirka macallimiinta oo khamiista 25 magaalo Örebro la yiraahdo Stockholm magtada ka dhici doona inaan kaga qayb galo وحن الإلهي وحكيم حق بالغو عابدا الدنيا حالك يا الحد يا حرب أردقي حديثك نبي إيو حيداق نوا قرآن حكمة ربيين بالإيه الدنيا لبحر موت حمان إيوا سمان حاران إيوا حلال حرنمي إيوا قنبو سبي سكلا حيقان حسكي مان كايس حيقا حوقي مرقايس حيقا حقي قوشايس حيقا دبتي حماهايس حيقا طبقي حيل بايس حيقا إلهي وحكين حق بالغو عابدا دوني دا إساقا حكومة حدكي ميشو ربو حولي كدو الميريا درارتي حوق سدو حبينكي سو حريستا
habeenkii soo xiraysta xarafka eebay ku taal ilaahay waa xakiim qoloba meel buu ku xuuro dunidan uu kala xidhxidhay xuduuduu kala dhex dhigay waxaa markab xiimay iyo xawaaraha duushadiyo xamuulkan isdhaafayaa mar baan xog la kala helayn xidhiidh isu socodba jirin indha yar gooni u xidhnayd afrika aan xadkeed la gelin caddaankani xiiqayee xayeysi mar buu ahaa bar xoola ah aan lahayn islaamku xagga sare ahaa xudunta cilmiga ahaa iyana xikmad eebba weeye innagu aan xisaabtanne soomaali xiiqsaneey xaggeen safka kaga jiraa dadka xusuldubay ee afkooda xurmeeyey ee xidigaha geeyey ee dhaqanka xushmaynaya ee xumaanta ka leexday ee xeerkiiyo sharciyada samaysa xafiiltan ma la gali karaa intaan waayuhu xumaanin dhulkeenna la kala xiraysan xuduudaha loo samaysan xaalkeennu siduu ahaa xariir dhul ah baan lahayn dadkiisuna yahay xalaal taariikhdiisu xooggan tahay xeer iyo dhaqan baan lahayn xooliyo beeraan lahayn bad iyo xeeb baan lahayn deegaan xalan baan lahayn cayaaro xusaan lahayn xay iyo dhiin baan lahayn xoosh iyo daylaan lahayn xaynoos quruxlaan lahayn qaydiya ximiraan lahayn fardaha xamar baan lahayn xawaaraha orodka iyo kadlaha xiimaayo oo nafluhu ku xaraawga xeer beegti aqoon leh oo xaqsoorka taqaana iyo xer iyo culimaan lahayn xididku xeer buu lahaa xushmiyo gogol buu lahaa xigaalku xaq buu lahaa xaqii ehelkuu lahaa xushmuu dariskuna lahaa xadkiisa la dhaafi karin dhalintu xeer bay lahayd xumaanta ka caagan oo xadgudub ruuxii sameeya geed baa lagu xidhi jiro xeer baa lala beegsan jiray jacaylku xuduuda iyo xag loo raacuu lahaa xishood iyo xaal gobeed xanuunku dawuu lahaa faraadin aqoon xafiday geedaha xubintood yaqaan baa xanaanin jiray dadkiisa cilmiga xidigaha dad baa xisaabaha falaga iyo xidig iska yaqaanay oo nayruuska xusuusin jiray sanadku xilliyuu lahaa xagaa iyo dayr xasilan xooluhu noo wada dhalaan jiilaal dhulku xaalufiyo xoog badan baan lahayn waxaan lahayn midabyo xulan caddaan xaafuuni iyo madow xor ah baan lahayn guduud ximiraan lahayn casaan xinjiraan lahayn cagaar xidhan baan lahayn basali xiisaan lahayn huruud xaaniyaan lahayn midabyo xardhan baan lahayn ugaadh xaynxayna iyo dugaag xamashlaan lahayn maroodiga xooga weyn wiisha xaalufaysatee geeskeeda ku xoogsatiyo geriga xuurta weegee caleemaha xuubsadiya deerada xaynta isu raacda xambaabulla aar libaax shabeel xadhan baan lahayn shimbiro xadka jabiye oon xisaab lagu koobi karin dhulkeenu u xarun ahaa warkani dulka xaadis weeye xogtiisu ma sii gundheera xisaabiya maaha xaraf haddaanay ka sii xumayn xaqiiqdu intaa ka badan murtida xeerkeeda weeye waxaadu arkayso xeer xaq iyo inuu kula sax yahay faruurtaada looma xidho dubnaha looma xakameeyo hadalka lama sii xulo xadkiis lama sii jabshee warkaygana soo xidhee maxaa xala ee gudboon dhulkeenni xaaluf weeye dhirtii waa la xuubsado dab iyo xulad baa la tegay xaabiyo dhuxul bay noqdeen xiraad dhulka lagama helo ma aqaan inay dadku xiraad garanayaan waxaan weydiiyey nin saaxiibkaya waxa weeyaan cashada iyo waxa la yidhaha xiraad quraacdana waxa la yidhaahdaa afur qadadana waxa la yidhaha hadhimo xiraad dhulka lagama helo xasiidiya aaladda xusuusoo baddaan lahayn tuugaa xeebaha ku nool kalluunkii xoonsanaa laxaaqiyoo lana xasuus xaynxayntii ugaadha iyo dugaaggeennii la xaabsay sidii xabad loola dhacayo xuduudaha jabiyeyoo dariskay xoolo u yihiin iyagay u xeraysan yihiin xanaan iyo nabadba helo iyagaa xoor iyo ka maala xoolaan la qiyaasi karin dhaqankii waan xabaalay oo innagaa xaslan weynayoo xurmadu inaga mudnaa iyo xaqiisii maynu siin xabaal buu afkii dulyaal xaqooda kuwaan aqoon markay wax xujaynayaan waxay ku xisaabtamaan af aan xadka dhaafahayn dunida loogu xoogsanayn maxaa loogu xiiqayaa ee wakhtiga loogu xuurayaa xarumihii dhowri jiray raggii xeerkiiyo afkiiyo murtida xoodaami jiray xabaal bay wada galeen anigu xaal garani maaye afkaygii waan xidhaya xal kale ruuxii hayow xogtii u dambaysay iyo xaalkeennii waa sidaa